jiritaanka argagixisada iyo inay dadka laayaan waxa lafdhabar u ahaa dhaqaalaha xoogan oo ay sida baadda uga qaadi jireen bulshada gaar ahaan ganacsatada Soomaaliyeed dhaqaalahaas oo ay u adeegsan jireen dilalka qaraxyada baabuurta cabsigelinta bulshada iyo wax kasta oo halis ku ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed maadaama argagixisadu uu ku socdo dagaal toos ah oo gacantooda looga saaray deegaano iyo degmooyin muhiim ah oo ay muddo xoog ku haysteen kuwa kooban oo ay joogaana lagu beegsanayo ayaa waxa la mahuraan noqotay si soo afjaridooda ay u fududaato in dhinaca dhaqaalaha laga cuuryaamiyo ku baraaruga bulshada arxandarrada iyo ficilada foosha xun ee argagixisada oo ah kuwa aan waxba hambayn oo lagu daray digniino iyo go'aano dawladda ah ee la dagaalanka cadawga ay inta badan ganacsatadii siin jirtay cadawga baadda joojiyeen qarashaad lagu sii dhibaateeyo ummadda Soomaaliyeed balse dadka faaqida arrimaha argagixisada iyo sida ay dhaqaalaha u sameeyaan ayaa rumaysan inay wili jiri karaan wadooyin ay ku heli karaan dhaqaale yar oo aan ku filnayn dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ka go'an in ay soo xirxirto wada kasta oo ay kooxda khawaarijta ee al-shabaab dhaqaale ku heli karaan waana sababta keentay in ay daciifaan kooxdaas bilihii ugu dambeeyay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale ku celiyay inay dambi tahay qof kasta oo lacagtiisa ku taageera al-shabaab isaga oo tilmaamay in lacagaha ay qaataan khawaarijta ay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed waxaan la isku khilaafsanayn oo muran ka taagnayn shilinka shabaab la siiyay wuxuu u adeegsanayaa dhiigga muslimiinta abriyada inuu daadiyo askariga shabaabka wax dilaya mishaar loo siiyo materialka ama qalabka qaraxa lagu sameeyo lagu soo gado midka qaraxa inuu meel mariyo la raba lagu laaluusho dhammaan isku soo wada xeeriyo dhiig la daadinayo qof Soomaali oo muslim oo bari ah oo wax waleeyay wuxuu galabsada aanay jirin dhiigiisa dilay ay xurmadiisa la baabi'inaya loo adeegsadaa qofna ma uu cudur daari kara marka aniga waxay sameeyaan ma aqaan iyo waxay ku sameeyaan ma aqaan iyo lacalla waa intaas wax fiican ay ku sameeyaan iyo ma jirto ogow baasada aad saas u taagtay waxaad u taagtay walaalkaaga Soomaaliga oo muslimka ah dhiigiisa in lagu daadiyo cirdigiisa in lagu xadgudbo in lagu duleeyaad caruur badan lagu agoonteeyo hooyooyin badan asaay loogu saaro maxaan ku yaad u bareertay markaad jeebkaaga inta shilan ka bixisaaso cabsi cudur daar ma aha waxaad sabab u noqonay kumanaan iyo boqolaal Soomaali ah in la dilaad sabab u noqonay oo waxay hadlayeen aan jirin muslimiin ah salaada dukaday qaarkood weysada u dhowran tahay qaarkood masaajid ka soo baxay qaarkood masaajid ku sii socdaan qaarkood maxaan ku raadaay ay amal suban oo saalix ay ku jireen oo Ilaahay hortiisa ay u taagnaayeen dhimashadoodaad sabab qayb ka tahay ogow Ilaahay hore noogu digay annagana waa idin xasuusinaynaa dadka Soomaaliyeed kuwa alla wax u dhiibow ilaashada wixiina ha ku naar mutaysanina nafta adiga malihid mana isku celi kartid mana iska qaadi kartid shabaabna kugu ma celi kara kaamana qaadi karo waa nacasnimo show laba geeriyood ma aha shilinka aad bixisay hal ugu diro ayadoo maalintii aad dhimarayd maalintii Ilaahay kugu talagalay ay tahay haddana inaad adigu qayb ka qaadatay dhimashada kuwa aad jeceshahay dhimashada kuwa muslimiinta abriyada cudurdaar ma laha kooxda khawaarijta al-shabaab ma jirto xilligan wada u furan oo ay dhaqaale uga heli karaan ganacsatada iyo dadka hodanka ah oo ay baadi jireen haddii ay dhacdana in yar oo ganacsatada inay dhaqaale u geeyaan ma jirto dariiq ay u maraan hay'adaha amniga oo ay ugu horeyso hay'adda NISA ee nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka ayaa dabagal xoogan ku haysa dadka lacagaha siiya al-shabaab iyo kuwa u qaada intaba dhawaan ayayna ahayd markii duleedka degmada Afgooye lagu dilay madaxii khawaarijta u qaabilsanaa u yeeridda dadka si lacaga baada looga qaado gabalkii khawaarijta wuu dhacay waxayna ku jiraan rafashadii ugu dambeysay jiritaankooda inta kale waxaa la filayaa in meelaha godadka ay ku dhuumanayaan loogu galo oo nolosha lagu qabto cadaaladana la horjoojiyo dhawaan